warahmatullahi wabarakatuh saxaabay halkan waxaan ka soo jeedinaynaa cashir gaaban oo aad u gaaban weliba maanta oo aan isku dayna bal inaan jilmado yaryar oo luqadda Ingiriiska aan ku fasirno af Soomaali kali waxaan akhrinaynaa qaybta Ingiriiska marka wixii aan khaladno ama aan si aad sax ah inaan u qorro waxaan rabnaa in commentiga looga soo jawaabo kadib af Soomaaliga waa la wada yaqaanaa ninbana si buu yaqaanaa maxaan ku dhahaa lahjadana waa kala leenahay dabcan qof walba oo af Soomaaligaas wixii ka khaldan waxa laga rabaa inaad ka soo jawaabtid si aan u saxno qaybtan Ingiriiska kaliya ayaanan hadda akhrinaynaa insha Allah dhageysi haboon simple sentences waa jilmo gaaban jilmado ka fudud ama jilmado fudud waxa ku qoran meeshan halkan waxa inoo qoran hadii Ilaahay yiraahdo simple sentences halkana jilmado gaaban waxa laba qof sheeko laba qof u dhaxaysa waaye what are you doing u dhahay what are you doing halkan maxaad ka qabanaysaa ama maxaad sameynaysaa I'm eating waxaan cunayaa food cunto I am anigu eating waxaan cunayaa food cunto who is with you yaa kula jooga who is with you yaa kula jooga nobody is with me cidna ilama joogto who gave you the food cuntada yaa ku siiyey one of my friends gave me it one of my friends gave me it waxaa laga wadaa iyada one of my friend mid ka mida saaxiibadayda ayaa siiyey buu dhahay can I share with you this food cuntadan ma kula qaybsan karaa ama ma kula wadaagi karaa yes you can share with me waad ila qaybsan kartaa ama waa ila wadaagi kartaa I'm very hungry today maanta aad ayaan u baahanahay aad ayaan u gaajaysanahay maanta ama aan u baahanahay I'm very hungry today aad ayaan u gaajaysanahay maanta ama u baahanahay came and eat this food came and eat this food cuntadana cun it is enough for us way inagu filan tahay kaalay cuntadan way inagu filan tahay yaa garanay thank you ayuu dhahay waa mahadsan tahay thank you my friend saaxiibow thank you my friend I am fed up waan dhergay waad mahadsan tahay saaxiibow waad mahadsan tahay waan dhergay ayuu dhahay thank you my friend I am fed up mahadsanid saaxiibow waan ka dhergay cuntadan waan ka dhergay mahadsanid intaas waa hal mar aan ku celinaynaa waana gaabinaynaa what are you doing maxaad qabanaysaa ama maxaad samaynaysaa I am eating waxaan cunayaa food cunto waxaan cunayaa cunto who is with you yaa kula jooga nobody is with me qofna ilama joogo who gave you the food yaa ku siiyey cuntada one of my friend gave me it mid ka mid aha saaxiibaday ayaa siiyey can I share with you this food ma kula wadaagi karaa cuntada ama ma kula qaybsan karaa yes you can share with me waad ila wadaagi kartaa I am very hungry today aad ayaan u gaajaysanahay maanta kaalay and eat this food kaalay cuntadan way nagu filan tahay thank you my friend I am fed up waad mahadsan tahay saaxiibow waan ka dhergay thank you my friend I fed up
tan laba jeer aan soo celinay cafwan waa iska bixinaynaa laba jeer ayaa kombiyuutarku ku soo celiyey insha allah haddii la yidhaaho